magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa maanta lagu qabtay xaflad xil wareejin ah iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta deegaankaasi sidoo uu ku soo waramayo wariyaheena inooga soo warama magaaladaasi. kulankan oo isugu yimaadeen madaxda maamulka Jubbaland isla markaana ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farsaar xildhibaanada Jubbaland maamulka gobolka Gedo ee Jubbaland odayaasha waxgaradka ururada haweenka kuwa dhalinyarta ayaa lagu qabtay degmada Garbaharey xarunta gobolka Gedo iyadoona kulankaasina lagu caleemay saaray gudoomiyaha cusub ee degmada Garbaharey oo dhawaan la soo magacaabay Nuur Maxamed Buraale iyadoona gudoomiyihii hore ee degmada mudane Imaan Cadow Kaarshe oo xilkii uu hayo ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Garbaharey mudane Nuur Maxamed Buraale waxaana horeen goobta ka wada hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Boole Maxamed madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farsaar labada gudoomiye oo xilka ay soo wareejinayay Imaan Cadow Kaarshe gudoomiyaha hore ee degmada iyo gudoomiyaha cusub ee degmada waqti badan baa la waday siyaabo badan baa loo arkayay maanta ilaahay baa mahadle halkaan wada joognaa waa u jeedaa guul weeye guul bayna noogu dhamaatay xafladda iyada ahayd oo kala wareejinta ahayd walaalkanaga gudoomiyihii hore ee Garbaharey Imaan Cadow Kaarshe ilaahay hadduu sanado qaban lahayn wax noo qabsoomi lahaa ma lahayn ilaahay ka suko waxgaradka aan soo tiriyey baa arrintaas ayada ah aad uga qayb qaatay waxaan rabaa intaas aan soo sheego waxgarad ah intaas aan soo sheego hooyo leh intaas aan soo sheego cuqaal leh intaas aan soo sheego dhalinyaro leh inaan hortiin looga mahad celiyo gudoomiyihii hore ee degmada Garbaharey Imaan Cadow Kaarshe oo aan dhihi karo hadduusan u tanasulin danaha dadka meeshaan fadhiyo danaha reer Garbaharey danaha caruurta 5 sano maxaa la yiraahdaa 25 sano aan helin waxbarashada danaha 25 sano ummadda mugdiga ku dhex jirtay danaha Garbaharey ay leedahay hadduusan u tanasul lahayn oo uusan u turi lahayn oo uusan ka dabqan lahayn inaan waxba noo qabsoomi lahayn aaminsan halka meeshaan fadhiyo waxaan idin cadaynayaa maantayto oo ay tahay 29 Oktoobar waxa aan u nimid halkaan inay tahay xil wareejin maamulkii degmada oo aan soo hayay aan ku wareejinayo maamulka cusub oo degmada loo soo magacaabay gudoomiye Nuur Sheekh Maxamed Buraale saasaad u ogaanaysaan taamar qaatibaan idinkaga dhigaya ama aad arkaysaan bayna isku wareejiyeen xilkii mas'uuliyaddii degmada ayagoo gacmaha haysto ayagoo u diyaarsan inay u shaqeeyaan bulshadoodii waxaa farxad weyn inoo ah qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen shirka aad nagala soo qayb gasheen in badan ayaan idinku salaamanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jeliga isi saare labadan dadka u aad baan idin salaamaynaa waxaad u aragtaan habka dimuqraadiyadda iyo isfahamka leh ee ka dhalatay gobolkayagii Gedo oo maanta ay gudoomiyaal si xaflad leh ay iskugu wareejinayaan xilalkoodii waa munaasabadihii noogu horeeyay ee gaarno ee qiimaha lahaa waxaan leenahay in badan annaga maamulka gobolka waxaan mar labaad hambalyo anoo ku hadlahayo afka xildhibaanada Jubbaland annaguna Imaan waxaan u aqoonsanay inuu yahay haliyeyga 2015 iyo 2016 anoo ku hadlayo afka Cabdirasaaq Sheekh Ismaaciil Cabsaaq Afrika Kalsan TV magaalada Garbaharey xarunta gobolka Gedo.